عليكم ورحمة الله وبركاته. سوداوada saaxiibada ku xiran kanaalka iftiinka ku soo dhawaada muuqaalkana maad saaxiibayaal. Dhabtii waa qanaacada qofka. Arday baa soo xadiray maadadii xisaabta wuxuuna fariistay fasalka meesha ugu dambeysa wuuna seexday. Muxaadaradii markay dhamaatay wuxuu ku daydii baxaysay wuxuuna fiiruuradii wuxuuna arkay macallinkii inuu ku qoray sabuurada laba su'aalood si dhaqsi ayuu buugiisa ugu qortay wuuna sii baxay. Markuu gurigii tagayna wuxuu ka fikiray siduu uga shaqayn lahaa labadaasi su'aalood waxayna ahaayeen laba mas'alo oo aad u adag. Wuxuu aaday maktabadii jaamacadda wuxuuna u laabtay buugtii laga baari lahaa oo dhan. 4 maalmood kadib wuxuu xal u helay su'aashii koobaad isagoo aad u xanaaqsan. Macalinkiisii shaqada sidaa u adag isbuucii xigay markii muxaadaradii u yimaadayna wuxuuna la yaabay macalinkii inuusan weydiinin ardayda inay keenaan layligii isbuucii hore la diray. Doktorkii buu u tagay isagoo ku yiri labadii su'aal tii koobaad oo qura iga qaadatay 4 maalmood oo dhan sidaan ayaan u soo qoray. Doktorkiina wuu yaabay wuxuuna yiri anigu shaqo guri ma badirin. Labada su'aal ee aan sabuurada ku qorayn waxay ahaayeen tusaale masaa'il aynan culimada ilaa hadda xal u helin ama ay ka daaleen. Taasina waxay noo cadaynaysaa inay qanaacada qaldani culimadii oo dhan kale xisay inay ka fikiraan ama isku dayaan siday xal ugu heli lahaayeen labadani mas'alo iyo kuwa tiro badan oo la midka ah. Ardaygaasi hadduu soo jeedi lahaa oo maqli lahaa sharaxaadda doktorka iskuma dayeen inuu ka shaqeeyo labada mas'alo badanaa hurdo ayaa ka khayr badan adigoo soo jeedo. ilaa iyo haddana waraaqihii uu kaga shaqeeyay ardaygii jiifay labadii mas'alo waxay yaalaan maktabadda jaamacadda. haddaba waxaa dhab ah inay nolosheena haleeyaan arrimo fara badan oo qaldan oo dhib inagu haya oon rumaynay inaanan sixi karin toosi karin ama bedeli karin inagoo si dhaba isagu dayin inaan ka fikirno kuna dadaalno sidaan u sixi lahayn ama u bedeli lahayn. sidaa darteed bay qof waliba waajib ku tahay inuu dhib kasta ka hor yimaado oo xal u raadiyo ka fikiro kuna soo jeedo wax badan isagoo ku qancin waxa ay dadku oran doonaan. baaritaano fara badan iyo fikir badan aynan la imaanin dadka. saaxiibayaal maanta muuqaalkiina halka ayuu ka egyahay intayna ku kulmi doono taniyo muuqaalkiina xiga. fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.